hadalhaynta ugu weyn ayaa ah mustaqbalka macalinka Manchester Robin Amorim taa oo ka dhawaajiyay Jim Ratcliffe war saxaafadeed ka soo baxay ninkan saamiga yar ku leh kooxda Manchester United ka oo kalsooni buuxda siiyay hogaamiyaha kooxda Red Devilska maalmihii ugu dambeeyay waxaa la isku weydiinay macalinkan in la burin doono inuu kooxdu sii joogi doonin maadaama qaab ciyaareed liita sanadkan ku bilowdeen sanadkii la soo dhaafay ku dhameysteen kaalinta ama kaalmaha ugu hooseeya horyaalka milkiilaha Manchester saamiga yar ku leh waqtigan Jim Ratcliffe ayaa markale xaqiijiyay kalsooni buuxda uu ku qabo tababaraha Portugiiska Robin Amorim inkastoo kooxda wajahda dhaleecayn badan kadib bilow xilli ciyaareed aan lagu qancin isagoo la hadlay Business Podcast Ratcliffe ayaa yiri xitaa haddii milkiilayaasha kale kooxda qoyska Glazer oo kala jeeda iga codsadaa inaan shaqada ka diro Amorim taa ma dhici doonto Robin weli xilli ciyaareedkiisii ugu fiicnaa muusan gelin balse waa inuu fursad u helo inuu 3 sano gudahood ku muujiyo inuu yahay tababar weyn sidaas ayaan anigu arkaa raaciyay ma maamuli kartid koox sida Manchester United oo kala ah adigoo si degdeg ah uga falcelinaya wax warbaahintu ay qarto waana warbaahin isbedelaysa toddobaad walba wuxuu mashruuc u baahan yahay xasilooni iyo dulqaad si miraha loo goosto hadalladan ayaa muujinaya in maamulka United wali si buuxda u aaminsan yihiin Amorim inuu kooxdu sii hogaamiyo wali dib u dhiska kooxdan uu sameeyo inkastoo natiijooyinku mararka qaar isbedelayaan isla markaana aan la doonayn in la sameeyo cadaadiska warbaahinta iyo taageerayaasha Ratcliffe ayaa Amorim u magacaabay bedelka Ten Hag bishii November 2024 balse tababaraha 40 jirka ayaa weli ku dhibaatoon Red Devils ku hogaamiyay qaab ciyaareed natiijo soo jiidasho leh United ayaa hadda ku jirta booska 10aad ee horyaalka iyo 6 dhibcood ka hooseysa hogaamiyaasha Arsenal toddobaadyadii ugu dambeeyay mustaqbalka Amorim ayaa su'aal galay sabab la xiriir natiijooyinka liita kooxda balse Ratcliffe oo leh 25% saameeyay kooxda ayaa difaacay tababaraha isagoo la hadlay Business Podcast warbaahinta mararka qaar ma fahmo waxay rabaan guul degdeg ah sida in la daarenal oo bari wax walba hagaagayaan taa sida uma shaqeyso yiri hogaamiyaha inka lagu magacaabo Jim Ratcliffe ciyaartoydii hore ama legendskii hore ayaa qayb ka kuwa aad u dhaleeceeya hogaamiyahan mar haddii mid ka mid ah milkiilayaasha kooxda oo ninkan kalsooni badan u muujiyay liigii hore Manchester Paul Scholes ayaa sheegay in bixitaanka Amorim uu yahay arin waqti kaliya ku xiran iyadoo kooxda haatan ku jirta booska 10aad ee BLka Scholes wuxuu yiri aan dareemayna xaaladda Robin Amorim ay gaartay meel aan rabin inaan mar kasta ka hadalno Manchester runtii waxay siisaa tababarayaasha waqti ku filan taageerayaashu marnama buuqayaan laakiin kadib kulankii Brentford 3 gool waxaan isiri waxa laga yaabaa in la siiyo waqti aad u badan hadda wuxuu muuqataa in dhammaan arrintu ay tahay arrin waqti kaliya ku xiran kooxdan ay la kulmayso xaalad aad u adag iyadoo cadaadiska xooggan uu saaray tababaraha Portugiiska inkastoo maamulka sare kooxda dhawaan sheegeen in wali kalsooni ku qabaan mashruuca mustaqbalka fog liyay kala ayaa jirnay kan aad u dhaleeceeyo qayb ka ah Greenville laakiin Jim Ratcliffe ay hadalka dhan beeniyay taa oo ku tilmaamay inuu yahay waqtigan mid kalsooni badan ku haysta macalinkan oo rajeynaya 3 sano soo aadan in kooxdu isbedel badan ku sameyn doono sida aragtaa hadalka hogaamiyahan ama hadalka milkiilaha